halkani waxay ka mid tahay meelaha dowladda Iran ay ku nashqadayso samaynta iyo waliba soo saarka diyaaradaha. tanina waxay ka mid tahay meelaha ay khubaradu 24 saacadood heeganka ku yihiin sida ay u soo saari lahaayeen ama ay u horumarin lahaayeen diyaaradaha. tanina waxay ka mid tahay horumarinta diyaaradda lagu magacaabo Yaasiin. diyaaradan oo ah diyaarad xajmigeedu yar yahay laakiin leh awoodo dheeraad ah. diyaaradan waxaa lagu magacaabaa Yaasiin, taasoo injiinkeedu uu ka awood badan yahay injiinada diyaaradaha kale caadiga ah. tanina waxay ka mid tahay tijaabo lagu hayo pilotku marka uu diyaaradda ka boodayo markay diyaaraddu ku timaado xaalad degdeg ah. diyaaradan Yaasiin ayaa baalasheedu waxay gaarayaan ku dhawaad 20 mitir. waxa ay kalato ay diyaaradani leedahay 24 mitir isku wareega dhinac kasta. diyaaradan ayaa waxay awood u leedahay inay hawada ku socoto darajada caadi ahaan marka ay tahay 200 kilomitir halkii saacba. diyaaradan ayaan loo baahnayn in ay ku degto garoomada aadka u dhaadheer, waxayna ku degi kartaa garoon xitaa 700 mitir ka yar. diyaaradan ayaa mararka qaarkood waxaa loo adeegsan karaa in lagu dejiyo meelo aan munaasib ahayn in diyaaraduhu fadhiistaan si degdeg ah, sida wadooyinka iyo waliba meelaha kale ee caadiga ee banaanada. diyaaradan ayaa diyaarad military oo qaadi karta hubka iyo waliba saarada military, gaar ahaan gantaalaha cirto-cir iyo waliba gantaalaha kale ee difaaca cirka. diyaaradan ayaa waxaa kaloo loo adeegsan karaa hab basaasnimo ah iyadoo oo control ku samayn karta hawada. waxaana ay diyaaradani xambaarsan tahay tiknoolajiyad casri ah kaasoo tashuush ku furi kara mararka qaarkood raadarada cadowga uu leeyahay iyo waliba diyaaradaha kale ee hawada maaxiya. diyaaradan ayaa waxaa kaloo loo adeegsan karaa hab isgaarsiineed. diyaaradan magaceedu waxaa loogu magacaabaa Yaasiin, waana suuradda quraanka Yaasiin magaceedu. diyaaradan Yaasiin ayaa waxaa samaynteeda iyo farsameynteeduba ay ka dhalatay gudaha dalka Iran iyadoo aan loo baahan in ay ka qayb qaataan qoodo kaleto, waana mid lagu farsamay dalka gudihiisa ama dalka Iran dhexdiisa. diyaaradan ayaa waxaa soo saarkeedii iyo waliba bandhigeeda lagu soo beegay maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 17 bisha Oktoobar 2019, waxayna ka mid tahay jiilka S3.5 ama S4.